soo dhawaada khiyaarta. Waxaanu eegi doonaa wax loo yaqaano design thinking. Waa maxay inaad ka sii fikirto designka aad sameynayso inta aadan sameyn. Waxyaalaha aynu eegi doono waxaa ka mid ah empathize, define, ideate, prototype iyo test. Waxaa la rabaa markaad designka ka fikirayso inaad marto 5 phase kadib baad waxaad soo saari kartaa design qurux badan. Okay, design thinking waxa weeye inaad ka fikirto designkaagii adiga oo gashan kabaha qofka clientiga oo loo shaqeynayo ama qofka audience-ga. Tusaale ahaan qofka designku leeyimi qofku sida uu rabo ayaa la rabaa inaad u sameyso maaha sida adiga u rabtid inaad u sameyso. Marka waa inaad kabihiisa gashataa oo aad ishiis indhihiisa ku eegtaa designkan oo aad dhahdaa ifan hadduu hadhow saan dhaho muxuu uga baahan yahay waa in marka ugu horeysa halkaan arkaa. Okay, qofka markuu saan u eego waxa uu arkayo waa inaad garan kartaa, waa inaad dhihi kartaa title-ka ugu weyn oo la arkayo waa kan. Okay, sawirka ugu badan oo la arkayo waa kan. Waxyaalaha soo noqonaya waa kuwa kan. Waa inaad dhihi kartaa oo sharxi kartaa. Maxaa halkaas soo gelaya design theory-ga ahaa waxa kan maxaan u sameynayaa. Okay, markaas ayaad ogaanaysaa sababta aan ku lahaa haddii aadan design theory aqoon ama aadan wax ka aqoon graphic design dhammaystiran ama graphic design laguma dhihi karo. Just Photoshop baa baratay waxaanad sameysaa waxyaalaha dad kale ay sameeyaan ayaad kaga dayataa, laakiinse gidaarka ka dambeeya ma garan kartid. Marka waa inaad ogtahay waxyaalaha kan si aad isu dhammaystirto. waa inaad theory-yada aad wax ka garanaysaa haba yaraadeen. Okay, marka maxaan sameynaynaa? Empathize waa inaad dareemi karto feeling-ka ama waxa uu dareemayo qofka user-ka oo isticmaalaya designka kan ama eegi doona qofka person-ka aad u sameynayso. Qofka aad u sameynayso waa inaad dareemaysaa waxa uu dareemayo. Just inta iska sameyso dareen adiga ku qaasa waa inaan sameysan. Waa inaad ku eegtaa isha qofka waxa kan u baahan. Waa inaad ku eegtaa indhaha dadka fiirsan doona hadhow. Laakiin haddii aad adiga kaliya intaad qol soo xirato computer-kaaga inta la tagto kadibna designka intaad iska soo sameyso aad dhahdo haba abeeyeen waxa la arki doono wax marka ugu horeysa la arkayo color-ka muxuu ka turjumaya. Marka haddii aad saas sameysid waxa adkaanaysa in shaqada ma lagu darsado. Laakiin haddii aad garanayso shaqadaada aad dhahdo saan waxana uga baahan tahay saana uga baahan tahay hadhow markii aad qofka designka siinaysidna waxa laga yaabaa isagu inaan intaas u dhan fahansaneyn inaad dhihi kartid niyo designka waxaan halkaan uga dhigay sidaa in marka ugu horeysa la arko sidaan halkaan waxaan uga dhigay color-kan waxaan u qaatay in color-kan ayaa wuxuu ka turjumaa nooca shape-kan waxaan halkaa u dhigay sidaas ayuu noqonayaa. meesha tan lead-ka waxaan ugu sameeyey in lagu soo raaco. waxaan halkaan uga dhigay sawirkan waxaan u weynaysiiyey marka ugu horeysa in la arko. waxa labaad oo la arkayo waa maxay? waa waxaan. Okay, qofkii ma ogtahay isaga laftarkiisii waxa aad sheegayso wuu fahmayaa, wuuna garanayaa, wuuna arkaa. Okay, wuu ku dhahayaa maasha Allah waxaas dhan ma ka fikirtay already adna design theory-yada tan iyo waxaan waa soo haysay. laakiin haddii aadan ogeyn waxaas dhan qofka waxa dhahaysaa niyo maxaa ka wadaa designkan marka la dhaho just sawirkan wuxuu waa iska sawir oo ka waran ma fahmi kartid. haddii ka waran tusaale waxa ugu dhib yar waxa uu sahlan education baa laga waramaya ama flyer education ku saabsan soo sameey baa lagu yiri. markaas waxa soo qaadatay kuwa gawaari iyo wax ka shaqeynaya ama mashino iyo wax furfuraya. qofkii kale muxuu ku dhahayaa niyo sawir aan waxa u baahanahay sawir ka turjumaya education-ka iyo waxyaalaha arday book haysta iyo waxyaalaha. adina waxaa tiri niyo sawirkan soo baxaya kalarada iyo waxaas ku wanaagsan yahay war ma rabo ani waxaan u baahanahay wax kan ka turjumaya. marka saas weeye oo kale waa waxa ugu dhib yar. waa waxa qof walba fahmi karo sawirada iyo qaabka moogtahay loo qaadan karo wax ka turjumayaan. marka waa inaad saas oo kale design-kaaga bit ula socotaa. design theory-gina saas uu inoo sheegay waxa aad sameynaysid waa inaad su'aal iska weydiin kartaa. su'aashan waa inaad isaga jawaabi kartaa. intaa un weeye. define-ku waa maxay? problem-ka aad soo heshay waa inaad xallin kartaa. tusaale ahaan waxbaad markii aad isha ku eegtay isha qofka design-ka u baahan baad problem aragtay. Okay, waa inaad xallin kartaa problem-ka. problem-yadana waa inaad mid walba meeshiisa ku xallin kartaa. Okay, sidoo kale waa inaad idea samayn kartaa oo markaad brainstorming-ka sameynaysid waa inaad several ideas oo badan aad keeni kartaa. waa inaad saan u dhigaa, waa inaad halkan dhigaa, waa inaad saan dhahaa, waa inaad halkan ka wareegaa, waa inaad wax isu keeni kartaa. just maxaa la marayaa weli maskaxdaada lagu jiraa weli
looma imaan applicationki iyo waxyaalaha applicationka waa waxa ugu dambeeya la adeegsado laakiinse qofka wuxuu ka dhigaa waxa ugu horeeya uu adeegsado kadibna hal saacba waxaa laga yaabaa inuu dul taagnaado maxaa la lahaa workspace caddaana lama baahna waa inaad maskaxda waxaan kusoo samaysaa marka hore okay prototype waa inaad samaysaa ood isku xirtaa maskaxda iskaga xirtaa okay markaan saas sameeyo aan soo qaato sawirka aan ka dhigo nooca kalarka aan qaato designka aad samaynayso waa inuu kuu sawiran yahay already inta aadan samayn okay ood wax isku xirxirtaa okay testi waa inaad samaysaa kadib aad samaysaa oo aad eegtaa wixii khaldamina aad ka wareejisaa oo aan shaqaynayn kadib markaas process fiican baa martay laakiinse haddaad iska bilowdo maantana waxaa laga yaabaa 2 saacadood 5 saacadood inaad poster yaroo xayeysiina inaad haysato sababtoo ah design thinking maad samayn kalarka la qaadanayo ma taqaanid waxa uu ka turjumayo waxaan ma taqaanid waa iska bilowday kadibna waxaad aragtay xilliga dhamaato arag baastiri waa iska soconaysaa macnaha waxaa laga yaabaa poster xun inuu ku haysto 2 saac 5 saac 6 saac 7 saac 2 maalmood la fadhido marka waa inaad fahansantahay waxa kan marka design thinking intaasaan kusoo koobinaa qof walba insha Allah ha isku adkeyn waxa kan way fudud yihiin just haddaad ogaato waxaan in la sameeyo intaas haba waxay tahay wax muhiima kulbaan idin rajaynaya